السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa EBC News Now. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii wararka caalamka. Waxaan idin daadihin doonaa anigoo ah Mustafa Cabdullaahi. Daawasho wanaagsan. Waa tahay daawadayaal qodobka maanta aanu ku soo bandhigayno barnaamijka waxa uu yahay dagaalka laga cabsi qabo in markaasi uu dhex maro Mareykanka iyo Iiraan. Labada dhinac ayaa iyagu markaasi diyaar garow xoogan ku jira. Waxa laga cabsi qabaa in dagaalkani uu mar walba goori noqotaba uu qarxi karo. Waxaa markaasi gacanta la hayaa oo la leeyahay warkada oo ka joog Mareykanka madaxweyne Trump ayaa isagu mar kastaba ku hanjabaya inuu markaasi weerari doono dalka Iiraan. hadalkiisii ugu dambeeyay madaxweyne Trump ayaa waxa uu ahaa Iiraan haddii ay doonayso in ay markaasi aan ka joojino dagaalka iyo weerarka waa in ay miiska wada hadalka ku soo noqotaa wada xaajoodka isla markaana ay aqbashaa amarada ama awaamirta aan doonayno inaanu siino. waa hadalka madaxweyne Donald Trump. haddaba khataraha markaasi la arkayo khataraha markaasi soo wajahan ee ku soo wajahan bariga dhexe ayaa waxa ay yihiin kuwa aad iyo aad runtii looga dayrinayo maadaama quwadda adduunka ugu weyn ee Mareykanka oo markaasi ku qalabaysan hubkii casrigii ugu dambeeyay iyo hubka waxkumaada ee loo yaqaano nuclearka oo iyagu markaasi aan gacantooda la gaban horena u isticmaalay dagaalkii labaad ee adduunka markii ay Jabaaniiska ku dhufteen hubka nuclearka. haddaba sidee baa markaasi macquul ku tahay in dagaalkani uu ku bilowdo? dagaalkani maadaama uu Mareykanku doonayo in Iiraan ay miiskaas ku soo noqoto wada hadalka si markaasi looga hortago in aanay Iiraan u samaysan hubka nuclearka ayaa Mareykanku waxa uu pressure saaraya ama xoogga saaraya in Iiraan aanay marnaba samaysanin hubka nuclearka. arrintaas ayaa waxay cabsi weyn ku haysaa dalka Mareykanka iyo xulafadiisa ee markaasi gobolka markaasi degan sida dalka Israel oo kale ayaa walaac weyn iyo warwar weyn ay ku haysaa haddii ay Iiraan yeelato hubka nuclearka khatarta ay markaasi ku leeyihiin bariga dhexe haddii ay hubkaasi ay helaan. haddaba arrintan dagaalka ayaa waxaa loo arkaa mid markaasi khatar weyn ku noqon karta bariga dhexe oo dhan isla markaana abuuri karta arrin dhaqaale xumo weyn oo markaasi ku soo wajahan bariga dhexe iyo dhammaan adduunka oo dhanba iyo sidoo kale dagaalo markaasi iyaguna halkaasi ka bilowda. waxaa dhici karta in dagaalkii saddexaad ee adduunka uu halkaasi ka bilowdo oo kooxo hanjabaadii madaxweyne Trump uu markaasi hanjabay kadib waxaa ka daba hadlay oo markaasi isagana hadalkiisa u jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan isla markaana waxa uu sheegay in wax kasta ama fal kasta oo lagula kaco weerar dalka Iiraan ay si dhaqso ah ay uga jawaabi doonto. Iiraan ayaa iyadu xaggeeda waxay ku jirtaa iyaduna abaabul weyn oo difaac ayay u diyaar garowday isla markaana sidii ay isaga caabin lahayd weerarada markaasi Mareykanka uu ku qaadi doono iyo xulafadiisu. arrintan ayaa waxay tahay arrin markaasi walaac weyn dhammaan caalamka oo dhan ku haysa maadaama bariga dhexe uu yahay halbowlaha dhaqaalaha shidaalka adduunka oo dhan la isticmaalo. waa tahay bal haddaba caalamka iyo weerarka uu madaxweyne Trump uu wado sidee bay caalamku uga falcelinayaan? caalamka marka la eego dhinaca wadamada reer galbeedka ee loo yaqaano European Unionka ayaa iyagu waxa ay raaceen dhinaca Mareykanka waxayna ay soo saareen warbixino ay ku sheegayaan in markaasi ay Iiraan ay cunaqabateen hor leh ay saareen. cunaqabateentaas oo ah iyadu mid markaasi gabi ahaanba hogaamiyaasha Iiraan iyo ciidamadeeda iyo shirkadaha caalamka ee lacagaha dhaqaalaha iyo wax walbaba ay cunaqabateen saareen. isla markaana waxaa la yidhi cunaqabateentan hadda ay saareen European Unionku ayaa waxay ka dhigan tahay tii ISIS la saaray oo kale iyo Al-Qaacida taasoo markaasi saameyn weyn ku yeelan doonta dalka Iiraan inuu markaasi dunida macaamilka uu la leeyahay xiriirka ganacsi iyo isu socodka ay dhibaato weyn ku noqon doonto dowladda Iiraan. Yurubiyaanku waxay taagan yihiin waa inaad joojisaan dadka aad caburinaysaan dadka aad leenaysaan dadka aad mudaharaadka u diidaysaan taasoo macnaheedu ka dhigan yahay dadku waa inay kacaan dowladda meesha jirta ee kacaanka islaamiga loo yaqaanina meesha laga saaraa. haddaba sidee ay isku waafaqaysaa in markaasi ay dowladda Iiraan ay aqbasho arrimahaas oo dhan? Mareykanka sidoo kale isku wax ayay iyagu iyo European Unionku ayay dalbanayaan
oo ah in markaasi iiraan ay isdhiibto oo dowladda kacaanka meesha laga saaro oo dadka rayidka meesha loo dhiibo xukunka isla markaana gebi ahaanba laga takhlusiyo dowladda kacaanka ee islaamiga. dhinaca kale waddanka turkiga ayaa isagu isku dayaya in markaasi ay dhexdhexaadin ka sameeyaan maraykanka iyo iiraan dhexdooda. wararka laga helayo Reuters ayaa waxay sheegayaan in markaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan uu booqasho ku tegey qarsoodiya dalka turkiga isla markaana uu u gudbiyey fariimo muhiima markaasi dhinaca uu ka siday dowladda iiraan. turkigu laakiinse si official ah umuu soo shaacin in markaasi ay wufuuddaasi soo gaadhay iyo in markaasi ay doonayaan inay dhexdhexaadiyaan, balse waa wararka ay soo saareen jiradda loo yaqaano Reuters iyo AFP ayaa iyagu wararkaasi soo saaray oo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa ay ka helaan sida ay sheegayaan. markaa turkigu wuxuu doonaya in markaasi halkaasi dagaalkaasi aanu dhicin oo aan iiraan la weerarin maadaama ay daris yihiin saameyna ay ku yeelanayso turkiga haddii iiraan la weeraro ama bariga dhexe uu dagaal ka dhaco oo markaa turkiga qudhisu saameyn weyn ku yeelan doonto. haddii meesha iiraan ka baxdo waddanka kusoo xiga isagu waxa uu noqonayaa turkiga laakiinse isagu ma aha mid macnaha weerar ciidan loo geysanayo ee waa weerar xagga gudaha ah oo dowladda gebigeedaba la bedelo oo markaasi maamul cusub oo markaasi taageersan kooxaha reer galbeedka ah halkaasi laga dhiso. arrimahan awood sheegashada ah ayaa iyadu markaasi soo kordhaysa caalamka oo kasii badanaysa mar kasii dambaysaba sidii markaasi hore caalamku u dhaqmi jiray si ka duwan ayaa hadda loo dhaqmayaa maadaama la ismuquuninayo oo awood isku muquuninayo. awoodo cusub ayaa doonaya inay soo baxaan abuurmaan. awoodihii hore u jiray markaasi ayaa iyagu markaasi survival ay ku qasban yihiin ama aad moodaa inay ku qasbanaanayaan in markaasi ay ka guuraan dibacsanaantii hore ee markaa caalamka ay kula dhaqmi jireen oo hadda markaa ay dib u soo celiyaan in markaasi dadka qori lagu taago iyo awood iyo xoog sheegaso la muujiyo. arrimahan waxaa la odhan karaa dagaalka bariga dhexe haddii uu qarxo saameyn weyn ayuu caalamka ku yeelan doonaa. dhinaca kale carabta haddaba waddamada markaasi iyagu ku xeeran bariga dhexe ee degan riishinka sida sacuudiga, qatar, imaaraadka, jordan, bahrain, waddamada markaa iyagu soo saara shidaalka ee bariga dhexe ku yaala cabsi weyn ayaa soo food saartay, taasi oo markaasi ku salaysan in haddii dagaalkaasi iiraan uu dhaco ay waddamadoodu khatar weyn ay ku sugan yihiin amnigooda iyo dhaqaalaha markaasi ay haystaan ee ah shidaalka iyo gaasta dabiiciga ah ee ay dhoofiyaan ee caalamka u dhoofiyaan maadaama uu maraykanku ku leeyahay saldhigyo ugu badnaan waddamada carabta halkaas ku yaala. waddamadaasi markaasi waxa ay warwar weyn ay ka qabaan arrintaasi. sacuudigu ku jeer ayuu la hadlay maraykanka, sidoo kale imaaraadku waa ay la hadleen, qatar iyaduna sidoo kale waa ay la hadleen, inkastoo hadda xiriirkii qatar iyo maraykanku ay sii xumaadeen oo markaasi maraykanku uu saldhigiisii uu ka gurtay alaabihiisii iyo maamo dhexaasa la soo geliyay suuqa in maraykanku uu gebi ahaanba ka gurtay alaabihiisa muhiimka ahaa saldhigii ku yaalay dooxa ee dalka qatar. haddaba waxaa la odhan karaa geopoliticska markaasi bariga dhexe ayaa isagu hadda noqday mid khatar ah oo caalamka o dhanna khatar ku ah, waayo dagaalka halkaasi ka bilowda waxa uu saameyn ku yeelanayaa caalamka oo dhan. waa tahay haddaanu eegno dhinacan kale awoodaha markaanu eegayno ee ku saabsan awoodda maraykanka ee halkaasi degan bariga dhexe sida halkan ka arkaysaan maapka ka arkaysaan waxa uu markaasi uu ku leeyahay maraykanku 15 saldhig ama 12 saldhig ayaa ah saldhigyo waaweyn oo markaasi ciidamo badan u joogaan. ciidamada halkaasi jooga waxaa lagu qiyaasay ugu yaraan 40,000 ilaa 50,000 inta u dhexaysa oo markaa iyagu saldhigyada jooga oo degan. waxaa taa usii dheer maraykanka maraakiibta dagaalka ee markaasi oo halkaasi jooga hadda oo marra uu geeyey marra uu ka soo kaxeeyo hadda waxa ku sugan ilaa 10 markab oo maraakiibta waaweyn ee ciidamada daabulaa ee markaasi iyagu wax duqeeya ee madaafiicda qaada diyaaradahana qaada. ka hadda ugu weyn ee hogaaminaya waxa ay galbinaya 10 markab waxa ugu weyn Abraham Lincoln markabka loo yaqaano oo isagu markaasi ah nuclear carrier ah iyo diyaaradaha waxba qaada madaafiicda diyaaradaha iyo nuclear ayuu xambaarsan yahay meesha doona ayuu duqeyn karaa oo nuclear ku duqeyn karaa, taasoo markaasi khatar weyn ah
markabkaasi meesha markuu yimaadaba aad ayaa loo ilaaliyaa waayo waxa uu sidaa waa hubka nuclearka haddaba maxay ka dhigan tahay arrintan iiraan uga dhigan tahay xaqiiqda marka laga hadlo markabkan nuclearka xambaarsan goobta hadduu tago macnaheedu waxay ka dhigan tahay inuu markaasi duqayn karo iiraan hubka nuclearka lagu duqayn karo haddaba maxaa ka dhalan kara haddii iiraan hubka nuclearka lagu duqeeyo iiraan qodheedu ma yaraysato oo waxay haysataa hub badan oo difaaca sida gantaaladii difaaca oo kale khatarta ah kuwaas oo markaasi iyagu abbaari kara maraakiibta maraykanka oo markaasi waxay haystaan noocan hadda casriga loo yaqaano loogu talagalay in maraakiibta lagula dagaalamo ee loo yaqaano hypersonic missileska loo yaqaano ayaa ay haysataa kuwaas oo markaasi maraakiibta meesha kasta ay joogaan ay duqayn karaan marka wax la dhiyarsan karo ma aha laakiin waxaad moodaa in markaasi afka laga booteynayo oo ay tahay booto markaa wax hadda isku hayo iyo hanjabaad iyo cagajugleyn iiraan qudheedu igu soo orod maaha waa khatarteeda ayay leedahay inkastoo haddii xitaa nuclear lagu dhufto iyadu qudheedu saameyn waa yeelanaysaa oo saameyn waa ay gaarsiinaysaa macnaha dhaawac waa ay gaarsiinaysaa wax sidii markii horeba weerarkii hore lagu qaaday ay uga jawaabtay oo dhaawac khatara gaarsiisay dalka israa'iil waa tahay haddaan markaa eegno khatarta markaasi halkaasi ciidamada markaa maraykanka ee meesha lagu daabulaya inay keeni karto in xabaddu afka ka baxdo waayo waxa meeshan jira wakti ayaa ku socda maraykanka iyo asxaabtiisa waktiga ku socda waxay tahay haddii iiraan ay ka gaarsiiso inay nuclear samaysato 10 xabana allaha ka dhige khatar weyn ayay ku tahay dhammaan awooddaasi reer galbeedka waayo bariga dhexe waxay noqonaysaa inay markaasi iiraan ay awood weyn ku yeelato oo ay noqoto markaa super power meesha degan oo iyagu bariga dhexe degan waxaa dhici karta inay xitaa qaadataba waddamada carabta o dhan ay awood ku qabsato haddii nuclear yeelato waa dhibaatada weyn markaasi laga baqayo reer galbeedku ay ka baqayaan waa tahay waxaa kaloo jirta iyadana markaan eegno awoodda iiraan maraakiib hubkan ay haysatay ee gantaalada casriga ah ee markaasi iyagu hypersonic oo kale kuwa loo yaqaano iyo kuwan kale iyagu markaasi loo yaqaano continental missileska ah ee maxeeday awoodda badan ee ay isticmaalaysa berigii dhaweyd waa gantaalo khatara intii hadda ay abaabulka ku jirtay ee dagaalkii hore ee ka dhacay 2025 dagaalkii dhacay waxa ay samaysay isbeddel weyn bay samaysay waxa ay markaasi ku xiratay dalka shiina hub badan bay kasoo iibsatay diyaarada ha noqdaan kuwa kaloo markaasi gantaalo kale waxa lagu sii casriyay ha noqdaan ruushka oo kale iyagana waxay kasoo iibsatay hub badan bay kasoo iibsatay diyaargarow weyn ayay samaysay cajiiba marka lama garan karo hadda awooddeedu sida ay tahay sida hadda wararka ay sheegayaan way kasii awood badan tahay sidii markay ahayd berigaasi waayo waxay samaysay gantaalo kaloo cusub ay tijaabisay maamlo dhaweyd oo kuwaasi oo ay yidhaaheen waxa uu gaarayaa ilaa 10 kilomitir ayaa uu gaarayaa taasoo ay ka dhigan tahay in markaasi ay maraykanka qudhiisa duqayn karaan oo ay gantaalada cusub ee casriga ah ay ku duqayn karaan waa sababa hadda keenaysa in markaasi uu maraykanku iyo madaxweyne Trump siyaasaddiisu ay noqoto in si dhaqso ah looga hortago arrintan iyada ah markaasi oo wax laga bedelo sida wad arkaysaanba maabkaasi waxa ku xeeran halkaas oo arkaysan marinka loo yaqaano marinka xumis la yidhaaho ee markaa afka yar halkaasi iyada ayaa gacanta ku haysa anytime way xiri kartaa haddii halkaa xidho wixii halkaas ku jira waa shutdown waa qatarey waa baxreyney waa kuweydey waddamada markaa iyagu soo saara shidaalka oo dhan halkaa ayay ku xidhmayaan waxayna addoon u noqonayaan iiraan haddii markaasi maraykanku meesha ka baxo intaasina maraykanku saldhigyo ayuu ku wada leeyahay dhammaan intaas oo goobood oo waddamada ku xiran badda marka saldhigyadaas maraykanku sideebu markaa u khasaarin karaa haddii halkaasi xiranto macnaheedu waxa weeye dagaal weyn oo lagu riqmay ayaa bilaabmaya dagaalkan haddii uu bilowdo bariga dhexe waa isla holcaya maxaa adduunku dhaqaalihiisu waa isbedelaya shidaalkii adduunku samada ayuu gelaya wax weyn ninba ninka ku xog weeye ayuu markaasi ku muquuninaya waddamadan arkaysaane carabta ee bariga dhexe qudhooda ayaa is wada muquuninaya oo waa awood barsu wada sheeganaya nin waliba intuu dhul qaadan ka qabsan karo intuu addoonsan karo intuu awood ku qabsan karo waa qabsanaya waayo caalamka oo dhan baa survival waa jungle survivalkii oo kale marka laga sheekeynaya taariikhda sida maaragtay xayawaanku ay maxeeday u badbaadaan oo ay survivalka ugu jiraan midba mid kale uu cunayo kale waa jungle survival hadda caalamka hadda wuxuu noqonayaa imika barigaa dhexe waa survival bay noqonaysaa haddii dagaal xabad ka qush tiraahdo oo weliba iiraan meelaha la weeraro macal turkigana arkaysaan ayay saameyn weyn ku yeelanaysaa oo markaasi dagaalku waa uu soo gaaraya dhinaca turkiga dhinacan kale uu gaaraya maxeeday
wadamada kala dariska ay leeyihiin xagga Yurubta bari South East Asia China iyo India Pakistan iyo wadamada wada ilma taani wadamada ilma taani oo dhan waa u gaaraya dagaalka marka xulafaysi waa bilaabaya arrintaas waxay muujinaysaa in markaasi dagaalkii saddexaad ee adduunka uu halkaasi fud ka soo baxaya taasina waxay keenaysaa in awoodaha adduunka markaasi ay u kala qaybsamaan oo sidii dagaalkii labada adduunka loo kala jabo oo xulafaysi la soo wada weeraro oo caalamku dagaal isu bedelo waa tahay dawadayaal warkeenaasi maanta inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa ee ku saabsanaa dagaalka khatarta ah ee laga baqayo ee dalka Iran iyo waddanka Mareykanka iyo xulafadiisa wararka ka soo kordha dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa haddaba fadlan ku xidhnow EBC News kala soco wararka ugu dambeeya EBC fadlan ha naga ilaawin subscribe-ka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu